بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan qaadanaynaa lecture ka hadlaya wadankeena Soomaaliya. lecture ka hadlaya Soomaaliya. lecture about Somalia. lecture waa khudbo about ku saabsan Soomaaliya. It is waxay ii tahay a great honor for me. Sharaf weyn ay ii tahay aniga to appear inaan ka soo muuqdo in here halkan. It is waxay tahay a great honor for me. Sharaf weyn ay ii tahay to appear inaan ka soo muuqdo in here halkan. Today, maantana, I would like waxaan jeclaan lahaa to discuss inaan ka hadlo in aan falanqeeyo a lecture khudbo about ku saabsan khudbada Soomaaliya is our country waa wadankeena, which is in kaasoo ku yaala African continent, qaaradda Africa ayuu ku yaala, which is in kaasoo ku yaala African continent, qaaradda Africa, especially khaasan wuxuu ku yaala Horn of Africa, geeska Africa. It is people dadkiisana are Muslim waa Muslim 100% Somalia boqolkiiba boqol waa Muslim. It is people dadkiisuna are Muslim waa Muslim 100% boqolkiiba boqol. Mogadishona is the capital city waa magaalo madaxda of Somalia. It consists of waxay ka kooban tahay 18 regions. Soomaaliya waxay ka kooban tahay 18 gobollo. It consists of waxay ka kooban tahay 18 regions, 18 gobollo. Intaas waxay leedahay a good climate, cimilo fiican. Intaas waxay leedahay a good climate, cimilo fiican. Intaas waxay leedahay borders, xuduudo with waxay leedahay Kenya, Ethiopia and Djibouti. Intaas Soomaaliya xiriir leedahay. Soomaaliya xiriir leedahay with Kenya, Ethiopia and Djibouti. Soomaaliya haas waxay leedahay 2 rivers, laba webi, Jubba and Shabeelle, webiga Jubba iyo webiga Shabeelle. It also soo kale haas waxay leedahay the longest beach, xeebta ugu dheer in Africa. Soomaaliya waxay ahayd one mid ka mid ah of the African countries, wadamadii waxay ka mid tahay Afrikaanta ahaa, those kuwaasoo European colonists gumaysaasay Yurubta ahaa divided ay ku qaybsadeen in Berlin, shirkii Berlin oo dhacay in 1884kii. shirkii Berlin wuxuu ahaa shir lagu qaybsaday oo Soomaaliya lagu qaybiyey 5 qaybood 1848 ayuu dhacay, and it was divided waxaa loo qaybiyey into 5 parts, 5 qaybood ayaa loo qaybiyey Soomaaliya. 2 of them, laba ka mid ah 5taasna, 2 waxaa qaatay their freedom xornimadooda from waxay ka qaateen British and Italian. Ingiriiska waa gobolada waqooyi, Talyaanigana waa gobolada koonfureed. Colonist gumeysi Ingiriiska iyo kii Talyaaniga in 1960 ayana qaateen xornimadooda, and Djibouti-na god waxay heshay it is independence, xornimadeeda waxay hanatay iyadoona in 1977kii 1937 from waxay ka qaadatay French colonists gumeysigii Faransiiska ahaa. But like only 2 other parties, laba qaybood oo kaliya oo ka mid ahna are still willing in waxay ku jiraan the hands gacmaha of colonists gumeysta. All right, waa hagaag. The first president, madaxweyne ugu horeeyay wuxuu ahaa Aadan Cabdul Cusmaan oo loo yaqaanay ama loogu naanaysan jiray Aadan Cadde. The second president, madaxweyne labaad wuxuu ahaa Cabdirashiid Cali Sharmaarke. And Cabdirashiid Cali Sharmaarke uu ahaa under president kii saddexaad wuxuu ahaa was General Maxamed Siyaad Bare ayuu ahaa. kii saddexaad wuxuu ahaa Maxamed Siyaad Bare, Ilaahu naxariisto, who concrete kaasoo asagana oo qabsaday the country wadanka wuxuu ku qabsaday with a military power, xoog military ay ku qabsaday. Siyaad regime taliskii Siyaad wuxuu ahaa a president ayuu ka ahaa Soomaaliya for about in ku dhow 22 years, 22 sanadood ayuu Siyaad Bare wadankan gacanta ku hayay. He was captured, wuxuu qabsaday in October qabsaday 21kii in 1969kii. Siyaad Bare wadanku wuxuu qabsaday 11 bishii October 1969kii. Mr. Siyaad Bare many names wuxuu lahaa god wuxuu lahaa many names magac badan ayaa loo yaqaanay. Thorough taasoo si dhaxmaraysa his struggle xukunkiisa, like waxaa ka mid ah magacash badan. mar waxaa la dhihi jiray Siyaad Bare the heart of the country,
wadnihii waddanka mar waxaa la dhahay the father of population aabbihii ummadda the father of population aabbihii ummadda mar waxaa la dhahay the companion saaxiibkii of the flag oo calanka and many other names iyo magacyo kale aad u badan after collapse dhacii kadib of socialism taliskiisa dhiciisii kadib Soomaaliya haasradeed ma aysan helin weli gained ma aysan helin a reliable government dowladda la isku haleyn karo oo awood leh ma aysan helin which kaasoo restore soo celisa the security amaanka ama nabadgelyada and the peace iyo nabadda of the former government ee dowladdii hore Allah shows us ilaahna tusiyo annaga the right way jidka xaqa ah dadkaasoo we can pass aan mari karno and do not make us ilaahu hanaga dhigin those kuwa wanta istri kuwa baaba'ay oo daaleenta ilaahu hanaga dhigin aamin and that is taasina the indu dhamaadka of my lecture khudbadeeda so have a nice day maalin wanaagsan lahaada